haddaba maanta waxaynu soo qaadanaynaa fanaaniin Soomaaliyeed oo iyagu caan ka ah geyga Soomaaliyeed iyo meel kastoo qof Soomaaliya uu joogo ayaa waxa ay ka mid yihiin dadkaasi qowmiyadahaasi siyaabaha kala duwan ay u saameysay isu socodka iyo isdhexgalka qabiilooyinka Soomaalida. Haddaba barnaamijka maanta waxa uu ka hadlayaa fanaaniin Soomaaliyeed oo asalkoodu uu yahay qabiilo kale laakiin iyagu la degan ama ka tirsan ama inalayaal la ah qabiil kale oo halka maanta ay ku xisaabsan yihiin laakiin asalkooda iyo meeshay degaan ahaan kasoo jeedaan haddii dib loo raaco ay noqonayaan qabiilo kale iminkase loo yaqaano qabiilada ay la degan yihiin ama ay ku dhex noolaadeen ama inalayaalka ay leeyihiin xeerka iyo qaaraanka ay wadaagaan intaba. Haddaba waxaynu ka bilaabaynaa fanaanka caanka ah ee codka tolmoon leh. Waa fanaan ummadda Soomaaliyeed dhexdooda meel kasta ay joogaan ee Soomaalida ay degto wadanka geyga Soomaaliyeed gudihiisa iyo weliba dal shisheeye intaba ay si fiican u yaqaaniin. Waa Cabdiqaadir Cumar Macalin Yuusuf Jubba loo yaqaano. Cabdiqaadir waxa uu ka tirsanaa kooxdii Waaberi isagoo weliba ahaa fanaan cod tolmoon, fanaan Ilaahay haybad u siiyey soo gudbinta heesaha Soomaalida codkiisa iyo weliba hab soo gudbintiisa intaba. Cabdiqaadir Cumar Macalin Yuusuf fanka Soomaaliyeed wuxuu soo galay dabayaaqadii toddobaatameeyadii iyo weliba bilowgii siddeetameeyadii. waxa uu ahaa fanaan caan ku noqday 10 sano gudahood. Haddaba Cabdiqaadir oo ay inta badan dadka u yaqaaniin inuu qabiil ahaan kasoo jeedo beesha Murursade ayaa isagu waxa uu yahay asalkiisa laf ka soo go'day beesha Mariixaan. Beeshaasi Mariixaan kasoo jeeda ayaa iyadu deegaan ahaan iyo dhul ahaanba waxa ay la wadaageen beesha Murursade halkaasoo inalayaal ay la naqdeen kana guursadeen kadibna ay ku dhex milmeen dhexna galeen qabiilkaasi Murursadaha. Sanado badan kadib waxa ay noqotay in beeshaasi ay si toos ah kaga mid noqoto beesha Murursade iyadoo iminka lagu xisaabiyo inay ka tirsan tahay beesha Murursade. Cabdiqaadir ayaa isaga waxaa loo yaqaanaa inuu kasoo jeedo beesha Murursade laakiin asalkiisa haddii dib loo raaco waxa uu gelayaa beesha Mariixaan oo iyada degta gobolada dhexe iyo weliba gobolka Gedo ee geyga Soomaaliyeed. Fanaanka labaad inuu soo qaadanayno waa Cumar Cabdulle Shooli oo kasoo jeeda gobolka Shabeellaha Hoose ayaa isagu waxa uu yahay fanaaniinta Soomaaliyeed kuwooda ugu caansan. Madaalaha gobolada Waaberi ayuu caan ku ahaa. Wuxuu ahaa macalin musician muusikada noocyadeeda kala duwan tuma, fanaan heesaa ah weliba codkiisa dahabiga ahna dadka heesihiisa ugu soo gudbiyo. Wuxuu ahaa maaweeliye habeenkii iyo subaxiiba dadka ka maaweeliya tiyaatarka iyo idaacadda intaba. Cumar Cabdulle Shooli oo isagu kasoo jeeda beesha ee degtayada Shabeellaha Hoose ayaa isagu waxa uu markii dambe ka mid noqday uu la degay welibana ka mid noqday beesha Xaaji Saleebaan ee Habar Gidir. Cumar Cabdulle Shooli ayaa isagu qaaraanka iyo xeerkaba intaba la qaatay beeshaasi Saleebaan iyadoo la isku haysto waqtigii beeshaasi uu la degay. Dad ayaa waxay yiraahdaan dagaaladii sokeeyay kadib ayuu la degay, dadna waxa ay yiraahdaan in badanba waa ay deganaayeen beeshaasna waa ay ka mid ahaayeen. Si kastoo ahaataba fanaanka ayaa asalkiisu waxa uu kasoo jeedaa beeshaasi Baxtiraha la yiraahdo waxa uuna gobol ahaan kasoo jeedaa Shabeellaha Hoose laakiin waxa uu ku dhex milma Allaha u naxariistay beeshaasi Xaaji Saleebaan iyagoo qaaraanka la bixiya beeshaasi xeer kasta oo beeshaasi ay leedahayna uu qabanayo. Fanaanka kale inuu soo qaadanayno waa Cabdinaasir Macalin Saciid, fanaan cod halaasiya leh, cod talmoon leh, fanaan caan ka ahaa ummadda dhexdeeda. Allah u naxariistay Cabdinaasir Macalin Saciid wuxuu ahaa fanaan codkiisa samawaadka ka lalayo shimbiruhuna ay dhageystaan. Qof kastoo Soomaali ha jooga geyga Soomaaliyeed iyo dhul shisheeye waa uu yaqaanaa Cabdinaasir Macalin Saciid. Heesaha uu qaada dhammaantoodna waxay noqdeen kuwa hirgalay oo caan baxay. Cabdinaasir ayaa bilowgii toddobaatameeyadii fanka Soomaaliyeed soo galay. Waxa uu muddo 10 sano ah ku gaaray fanaanka ugu caansan, ugu codka macaan, ugu heesaha wanaagsan geyga Soomaaliyeed. Shil gaari ayuu ugu dhintay magaalada Muqdisho. Cabdinaasir ayaa isagu waxa uu kasoo jeedaa beelaha loo yaqaano Gabooyaha ama Madhibaanka asal ahaan laakiin waxa uu la degaa oo qaaraanka iyo xeerkaba la wadaaga beesha Waceysle gaar ahaan beesha loo yaqaano Macalin Dhiblaawe welibana beesha Macacade
ama Maxamed Cadde sida ay dadka u yaqaaniinba. Cabdinaasir ayaa isagu waxa uu ku dhashay degmada Ceeldheer ee gobolka Galguduud ee geyiga Soomaaliyeed, halkaasuu qabiilkaasi Waceyslaha uu dhex deganaa kana tirsanaa. Cabdinaasir Allah u naxariistay beeshaas ayay ku dhex milmeen, iyagoo iminka Waceyslaha ay la bixiyaan, gaar ahaan Maxamed Caddaha, lacagta qaaraanka loo yaqaano. Xeer kasta iyo wax kasta oo beeshaasi qabanayana ay qabanayaan, laakiin asal ahaan waxa uu Cabdinaasir ka soo jeedaa beelaha Gabooyaha ama Madhibaanka loo yaqaano. Fanaanka kale aynu soo qaadanayno waa Maxamed Maxamuud Xiibow, fanaan Soomaaliyeed oo qayb ka ahaa riwaayadii caankeed uu sameeyey abwaankii Allah u naxariistay Maxamuud Cabdilaahi Ciise Sangub ee loo yaqaano Waa Maadeys Adduunyadu Dadkuna Way Matalayaan. Maxamed Maxamuud Xiibow ayaa isagu waxa uu ku soo caanbaxay riwaayadaasi. Maxamed Maxamuud Xiibow oo iminka degan magaalada Muqdisho, fanaan caan ah, ayaa isagu waxa uu gaar ahaan ka soo jeedaa asalkiisa beesha Eylo, degta deegaanada kala duwan ee Soomaaliya. Maxamed Maxamuud Xiibow ayaa laakiin iminka ka tirsan inalayaalna la ah, qaaraanka iyo xeerkana la qaba beesha Gaaljecel ee iyadu ka mid ah beelaha Soomaalida degtana geyiga Soomaaliyeed qeybo kala duwan. Maxamed Maxamuud Xiibow ayaa isagu waxa uu ka mid yahay beeshaasi Gaaljecel, isagoo iminka loo yaqaano fanaan Gaaljecel ah oo ka soo jeeda beeshaasi. Laakiin asal ahaan Maxamed Maxamuud Xiibow wuxuu ka soo jeedaa beesha Eylo ee degta deegaano kala duwan ee Soomaalida ah, haba u badnaadaane deegaanka Shabeellada Hoose, Shabeellada Dhexe iyo weliba Baay iyo Bakool. Haddaba fanaaniintaas ayaa iyagu asalkooda waxa ay ka soo jeedaan qabiilo kale oo isdhexgalkii isu socodkii dadweynaha Soomaaliyeed ee qabiilada kala duwan ay iyagu saameyn ku yeelatay, halkaasoo qabiilada iyagu isdhex degaan, iska guursadaan, kadibna isku dhex milmaan. Fanaaniintaas ayaa iyagu asal ahaan ka soo jeeda qabaa'ilooyinka aynu soo sheegnay, kadibna ka mid noqday kuna dhex milmay inalayaalna la noqday qabaa'ilada kale ee iminka ay ku magacaaban yihiin. Haddaba daawadayaal, adigu fanaaniin noocaas oo kale ah miyaad ka taqaanaa? Fikradaada noogu soo gudbi qaybta hoose. Hana ka hilmaamin janaalka subscribe-ka iyo like-ta, iyo weliba inaad la wadaagto axsaabtaada sheekadaasi xiisaha badan. Dib dambe intaynu u kulmi doono barnaamij caynkan oo kale ah, nabadiina nooli kulante iyo ammaano Allah.